haddii uu Telegram kula mid yahay ababka iska caadiga sida Facebook iyo WhatsApp haddaba ogow in abkan uu gebi ahaanba ka madow yahay intaad ka aragtay sidoo kalena uu abkan gaadhsiisan yahay heer lagu tilmaamo badhaarka webka banaanka ayadoona ay gudihiisa ka dhacaan wax walba oo sharci darro ah dhanka kale sidee ku dhacday in asaasaha Telegram lagu soo eedeymo ka badan 12 dacwo kala duwan maxaase ka jiray khatarta Telegram ku duwan ay gebi ahaanba ka weyn tahay intaad ka malaysanayso haddaba mowduucan ku saabsan Telegram ayaa mowduuc aad xasaasi u ah inagoona muuqaalkeenan maanta isku eegana sheekada waalida ee abkan haddaba salaantii abkan lagu magacaabo Telegram waxa la aasaasay sidoo kale uu soo shaacbay sanadii 2013 ayadoona ay aasaaseen labadan walaalo ee lagu kala magacaabo Pavel Durov iyo sidoo kale Nikolai Durov waxay haataba laakiin aasaasa dhabta iyo sidoo kale CEO-ga Telegram ayaa ninka lagu magacaabo Pavel ninkan oo isla markaas salaantiisa aaminsan sidoo kalena ka dambeeya aragtida freedom of speech haddaba ninkan lagu magacaabo Pavel ayaa salaantiisa dhashay taariikhda markaad ku 884 asagoona ninkan ku dhashay wadanka Ruushka intaas kadib marka uu 4 sano gaadhay Pavel iyo sidoo kale qoyskiisa ayaa wareegay wadanka Italy halkaasoo ku soo qaatay waxbarashadiisa intiisa ugu badnayd ilaa ugu dambeyntii ay ku soo laabtaan wadankooda Ruushka halkaasuu Pavel aabihii ka helay shaqo professor ah asagoona dhanka kale Pavel ah mid halkaas waxbarashadiisa jaamacad ku qaata asagoona ka baxay jaamacadda lagu magacaabo Pittsburgh State University haddaba waqtigiisa jaamacadda Pavel ayaa la kulmay saaxiibkiisa oo lagu magacaabayay Vyacheslav Mirilashvili ninkan oo waqtigaas ayaan isku galaas ninkan oo ugu dambeyntii Pavel tusay abka lagu magacaabo Facebook iyo sida uu mar ka sii dambeeyo caan u sii noqonayo sidoo kalena uu adduunyada u sii fidayo midanuun isla markaas Pavel ku dhalisay aragtida inuu aasaasay aalad social media oo cusub sidoo kalena uu qaasa wadankiisa Ruushka ayagoona ugu dambeyntii labadan saaxiib aragtidaas isku raacay sidoo kalena gudagalay sidii ay u dhabayn lahaayeen aragtidaas dhanka kale Pavel ayaa sidoo kale groupkii ku soo daray walaalkiisa ka weyn ee lagu magacaabay Nikolai halkaasuna groupkan CEO-gooda uu noqday ninka lagu magacaabay Pavel Durov waxay haataba ugu dambeyntii bilowgii 2007 Durov ayaa si toos u daafiyay aaladiisa social media taasoo lagu magacaabay VKontakte asagoona isla hal sano gudaheedba uu projectigan cusub noqday mid ay isticmaalaan tiro ku dhaafaysa 10 milyan oo users midanuuna VK ka dhigtay in dhamaadkii 2008 uu noqday isgaarsiinta ugu weyn guud ahaan Ruushka oo dhan asagoona noqday social network koobaad ee wadankan midanuuna isla markiiba company ka dhigtay inuu mar ka sii dambeeyo sii koro heer company qiimihiisa waqtigaas gaadhay in ka badan 3 bilyan oo dollar waxay haataba laakiin wax walba sidooday kuma sii socon doonaan oo la siga daba iman doonaa haddaba sida aan badankeenu ka warqabno social media la isticmaalo waxa mar walba maamula sidoo kalena kor kula socda dawladaha waaweyn ayadoona sidoo kale dawladahaas danahooda gaarka ku fushaan waxay haataba taariikhda markaa 2011 waxaa Ruushka ka dhacday mudaharaadyo aad u waaweyn kuwaasoo ay isku soo bixeen 10,000 oo shakhsi haddaba dawladda ayaa isla markiiba ka cadhootay mudaharaadyadaas ayadoona sidoo kale guda gashay inay ogaato shakhsiyaadkii ka dambeeyay mudaharaadkan sidoo kalena dadyoogan isku soo kiciyay haddaba waa markii ay dawladdii bilowday inay u timaado shirkadii isgaarsiin lagu magacaabay VK ayadoona isla markaas dawladdu ka dalbanaysa shirkaddan inay la wadaagaan xogta abaabulayaasha kacdoonkan oo dhammaystiran maadaama ay dadkan kacdoon wadayaasha ay ku xidhiidhayeen sidoo kalena ay isticmaalayeen social media lagu magacaabo VK waxay haataba arrinkii la yaab kale ayaa markii uu Durov iyo sidoo kale shirkadiisa VK ay si toos u diideen dalabkii dawladda Ruushka oo ahaa inay isticmaalayaashooda xogtooda ay dhiibaan ayagoona isla markaas arrinkii si cad u diiday sidoo kalena dawladdii u sheegay inaysan haba yaraatay bixinaynin warbixinta isticmaalayaashooda midanuuna dawladdii Ruushka isla markaas aad uga cadhaysiisay ayadoona isla markaas ay halkaas ku dhalatay cadaawadii tooska ah ee u dhaxaysay Ruushka iyo sidoo kale ninkan lagu magacaabo Pavel asagoona dhanka kale ninkan bilaabay inuu aflagaaday sidoo kalena uu ku maadsado dawladdii asagoona bilaabay in social media uu soo dhigay sawirro ay ku jireen sawirkan oo ah asagoo farta dhex u taagay madaxweynaha Ruushka ee Putin iyo sidoo kale sawirkan oo ay sidoo kalena xiran funaanad sawirkan uu ku tilmaamay xukuumadda Ruushka iyo sida ay isku dhex qarinaysa shacabka waxay haataba laakiin sheekadu halkaas kuma joogsanin taariikhdu markaa 2013 waxaa sidoo kale dhacay mudaharaad kale oo aad u weyn laakiin markan waxa uu ka dhacay wadanka Ukraine haddaba arrinkii la yaab kale ayaa in sidoo kale ay mar kale xukuumaddii Ruushka ay soo fargelisay mudaharaadkan ayadoona sidoo kale bilowday inay ogaato abaabulayaasha mudaharaadkan iyo weliba sidoo kale xogtooda oo dhammaystiran midanuuna mar kale si ay u ogaadaan abaabulayaashan ay u baahdeen VK maadaama sidoo kale uu VK yahay barta ugu weyn ee laga isticmaalo wadankaas Ukraine iyo wadamada u dhowba sidoo kalena ay tahay barta kaliya ay dadku isku arursadaan sidoo kalena ay si xor ugu bannaan baxaan ayadoona mar kale uu ninkan mid arrinkii diiday sidoo kalena uu sheegay inuusan marnaba qiyaamin dadka ku xidhan sidoo kalena isticmaalay bartiisan wadankii rabaan baa ka soo jeedaan haddaba intaas kadib dawladdii Ruushka waa u soo dulqaadan weyday ninkan iyo sidoo kale bartiisan VK ayadoona ay dawladdii bilowday inay si toos u soo fargeliso VK waxay haataba ugu dambeyntii Pavel qorshe kale uma soo bixin aan ka inuu sheerkiisa iska iibiyo sidoo kalena uu halkaas ku dhaafo guud ahaan shirkaddan maadaama uu indhihii dawladda toos ugu soo jeediyey asagoona ugu dambeyntii ku khasbanaaday inuu gebi ahaanba ka cararo wadanka Ruushka oo dhan
haddaba inta aysan waxaas dhicin ka hor ninkan ayaa aasaasay waqtigaas abkan lagu magacaabo Telegram. abkan uu nagu sameeyay qaab inaysan dawladda maamuli karin, sidoo kalena uu qof walba si xor wax uu rabo ugu sameyn karo. asagoona ugu dambeyntii markuu ninkan ka dhamaaday VK, sidoo kalena uu ka cararay wadanka Ruushka, uu isla markiiba hore u sii qaatay shaqaalihiisa kala shaqeynaya Telegram. shaqaalahaanuna markaas ka koobnaa kaliya 15 qof, ayadoona ilaa maanta la sheegay in abkan sidoo weyn sidoo kalena ay si maalinle u isticmaalaan in ka badan 950 milyan oo shakhsi ay ka shaqeeyaan oo kaliya shaqaale gaaraya 30 qofood, ayadoona shaqaalahan ay ilaa maanta yihiin kuwa dunida kolba meel wareega, sidoo kalena aan lahayn wax xafiis ama meel ay si gaar ugu shaqeeyaan. haddaba ninkan marka uu ka soo cararay wadanka Ruushka waxa uu aqoonsi ka helay wadamo badan sida wadamada kale ah Imaaraadka, Faransiiska iyo sidoo kale wadamada Caribbean-ka, ayagoona isla markaas wadamada ay siiyeen ninkan baasaboor iyo sidoo kale dhalasho toos ah, sidoo kalena uu ku joogi karo wadamadooda waliba si xor ah. haddaba dhanka kale aan u soo laabana bartan lagu magacaabo Telegram. waxay yaataba abkan Telegram ayaa ab aad u halis badan, sidoo kalena aad u madow, ayadoona isla markaas ay abkan gudihiisa ay ka dhacaan wax walba oo sharci darro ah, ha ahaadaan muqaadaraad, tuuganimo iyo sidoo kale waxyaabo ka sii foolxun sida tacdiyada lagula kaco dumarka iyo sidoo kale carruurtaba. asagoona abkan kulmiya dadyo aad u xunxun, sidoo kalena meeshan ka dhex sameeyay wax walba ay rabaan. haddaba inkastoo ninkan markii hore ugu talagalay abkan meel ay qof walba si xor uga hadli karo, sidoo kalena aysan qofkaas xogtiisa bannaanka u baxayn, asagoona isla markaas abkan u sameeyay qaab inaysan qofna ogaan karin qoraalada dhexmaraya shakhsiyaadkan isticmaalaya abkan iyo sidoo kale xogahooda qaaska ah sida ay sameeyaan social media kale ee la isticmaalo, ayadoona haddii aad samayso wax sharciyadooda ka soo horjeeda isla markiiba lagu ogaanayo. haddaba abkan waxaasoo dhan waxba kama gelin, midanoona keentay inaan haba yaraatee la ogaan karin waxa ka dhacaya meeshaan. waxay yaataba laakiin arrinta murugada la ayaa ah in Telegram ayna noqonin ab ay kaliya isticmaalaan dadka doonaya xorriyadda, ayadoona sidoo kale ay si xad dhaaf u adeegsadaan, sidoo kalena ay ka dhigtaan hooy ay ku soo doontaanba kooxyaha xag jirka, sidoo kalena ay ka suurtoobaan wax walba oo xayawaannimo ah. haddaba saaxiibayaal intaan u guda galin qaybta xigta, fadlan ha ilaawin inaad nagu soo biirto sidoo kalena channelka subscribe saarato. aan u guda galno muuqaalkeena. haddaba aan isla eegno mid ka mid ah waxyaabihii ugu foosha xumaa ee ka dhaca abkan lagu magacaabo Telegram. taariikhdu markii 2020 dhammaan wadanka South Korea ayaa hal mar ku baraarugay war naxdin la sidoo kalena aad cabsi u ah kadib markii la soo daafeeday qolka lagu magacaabo The Nth Room iyo sidoo kale The Doctor. qolalkan oo isla markaas ka furnaa Telegram, sidoo kalena lagu soo gudbinay content aad u madow. haddaba qolkan lagu magacaabo The Nth Room ayaa la sheegay inay ku jireen tiro ku dhaafaysa 260,000 oo qofood, ayadoona sidoo kale ay qolkan ka hoos furnaayeen gurubyo kala duwan sidoo kalena kala nooca, kuwaasoona isla markaas lagu soo gudbinayo contentiga noocana. haddaba arrinka la yaab kale ayaa in waxaasoo dhan ay ka dambeeyeen laba shakhsi oo si dabiici u nool, sidoo kalena aadan marnaba ka malaysanayn inay sameynayaan faldambiyeedka noocan oo kale ah, ayadoona sidoo kale la sheegay in labadan qof ay ahaayeen arday sidoo kalena wax barata. haddaba labadan xayawaan ayaa waxay kala adeegsanayeen magacyada The Doctor iyo sidoo kale The Goat, ayagoona isla markaas si wada jir u sameeyay qolkan oo inay isla markaas u fureen sidoo kalena ay ugu talagaleen oo kaliya dhibaataynta dumarka iyo sidoo kale carruurta, ayadoona carruurtaas iyo dumarkaas laga duubay muuqaalo anshax xumo ah, kuwaasoona isla markaas ayaga lagu rakaataynayo. haddaba sheekadan ayaa ku bilaabatay markii ninkan lagu magacaabo The Doctor uu akoon ka furtay barta Twitter-ka, asagoona halkaas bilaabay inuu ku darsado gabdhaha yaryar sidoo kalena moodallada ah, asagoona gabdhahaas ka dalbanaya inay u sawiraan qaybo ka mid ah jirkooda, asagoona markaas gabdhahaas u ballan qaaday lacag aad u badan si ay isla markaas falkaas ugu sameeyaan. waxay yaataba laakiin intaasoo kaliya kuma ekaanayo, asagoona ugu dambeyntii gabdhahaas ku rakaataynaya sidoo kalena ku handaday isla muuqaaladaas si ay isla markaas gabdhahaas ugu sii qasbanaadaan inay qaab allaala qaabka uu rabo ninkan ay u sameeyaan, asagoona ninkan markaas ugu dambeyntii gabdhahan ka samaysanaya waxaan innaba maskaxdaada soo gelaynin, asagoona isla markaasna muuqaalo ka duubanaya falalkaas foosha xun. haddaba intaas kadib ninkan ayaa muuqaaladaasoo dhan isku soo aruurinaya, asagoona isla markaas keenaya qolkii lagu magacaabay The Nth Room, halkaasuuna bilaabay in muuqaaladii uu kala qaybay guruubyadii ka dhex dhisnaa meeshan, guruubyadanuuna kala duwan sidoo kalena isugu jira qolalka carruurta, qolalka dhibaataynta iyo sidoo kale qolal aad u badan, kuwaasoo in isla markaas ka buuxaan waxyaabaan innaba maskaxdaada soo gelaynin. haddaba kaaga daran qolalka waxaasoo dhan ay ka dhacayaan ayaa ah qolal lacaga, sidoo kalena la iibsanayo, ayadoona si muuqaaladaas wuxuushnimada aad u daawata aad u dhiibaysa lacag, ayadoona weliba lacagtaas ay ku xidhan tahay nooca muuqaale ee aad rabto. midanoona la sheegay in qolalka qaar gelitaankooda ayba ku fadhiyaan lacag gaadhay $10,000. haddaba faldambiyeedkan qolkan ka dhacay ayaa lagu tilmaamay inay gaadhayaan 103 faldambiyeed oo kala duwan, kuwaasoona isla markaas loo geystay carruur iyo sidoo kale dumar kala duwan, ayadoona marka maanta la joogo ay sidaas la mid buuxaan boqolaal kale iyo sidoo kale 10,000 oo qol, kuwaasoo lagu geysanaya dambiyo nooc walba isugu jira abkan dhexdiisa, midanoona isla markaas aan haba yaraatay waxba laga qaban karin. dhanka kale dambiyada meeshan ka dhacayaan kaliya ku ekeen kuwa loo geysto oo kaliya ibni aadamka, ayadoona sidaas la mid ay jiraan qolal ka dhisan abkan kuwaasoo lagu dhibaateeyay xitaa xayawaanka.
haddaba abkan ayaa ab sida daarka webka oo kale ah haddii aad lacag dhiibatana aad waxaad rabto ka dhex samayn karto haddaba badankeenu haddaan bini aadamnahay xayawaanka intaan dhibaatada lahayn waan jecelnahay sidoo kalena in la dhibaateeyo waan ka danqannaa laakiin ka waran haddaan ku sheego inay jiraan shakhsiyaad lid nugu ah sidoo kalena ku raaxaysaba dhibaataynta xayawaanka aan haba yaraatee waxba galabsanin ayagoona isla markaas lacag ku dhiibaya falalkan haddaba 2023 World Service ayaa soo daafayday in shakhsiyaad ka kooban kumanaan qof ay lacag ku bixiyaan group Telegram oo ka dhisan waddanka Indonesia gruubkan oo ayna ka dalbanayeen inuu soo duubo muuqaalo lagu dhibaateynayo xayawaanaadkaas yaryar oo ay ku jireen daanyarada yaryar ayagoona isla markaas codsiyo kala duwan dhiibanaya ayadoona aragtidan ugu dambeyntii dhiirigelisa shakhsiyaad badan oo lagu yaqaan xanaanada xayawaanada kuwaasoona isla markaas ayaguna bilaabay dhibaateynta xayawaanaadka kadib markii ay arkeen shakhsiyaadkan ogoleen inay lacag badan ku bixiyaan falalkan foosha xun sidoo kalena dhibaateynta xayawaanada ayadoona wariyaal BBC oo loo diray xogta gruubyadan ay gebi ahaanba la yaabeen waxa ay indhooda ku soo arkeen iyo sida ay arrintani faraha uga sii baxayso ayadoona dhanka kale group memberska ay meeshan ku arkeen ay gebi ahaanba la fajaceen iyo sida ay marba mar kasii dambaysa ay u sii badanayaan ayadoona ay ilaa maanta falalkan iyo kuwa ku xumbaayeen kuwa weli ka dhexdhacaabkan asagoona dhanka kale Telegram ku adkaysanaya aragtidiisa ah in aan la soo faragelin karin waxa soo falaya ka dhacaya abkiisan gudihiisa midanoona sahlaysa in goobtan ay hoy u noqoto shakhsiyaad noocaas oo kale ah sidoo kalena aan haba yaraatee wax jecelayn ayagoona isla markaas abkan public ah sidoo kalena ay dadweynaha oo dhan isticmaalayaan u adeegsanaya qaabkan fooshan sidoo kalena dhibaateynaya dad aan haba yaraatee waxba galabsanin haddaba dhibaatada meeshan ayaa in Telegram uu awoodo inuu la shaqeeyo dawladaha waaweyn sidoo kalena uu ka dhex qabto dambiilayaasha meeshan waxa ay rabaan ka samaysanaya laakiin nasiib xumo asaga ayaa diidan sidoo kalena ka hortaagan midanoona keenaysa in marba mar kasii dambaysa ay sii weynaadaan falal dambiyeedka meeshan ka dhacaya asagoona abkan ku adkaysanaya go'aankiisa inuusan haba yaraatay wax macluumaad siinin dawladahaas si ay isla markaas uga hortagaan falalkan ayadoona isla markaas dhanka kale ay dawlado badan ka xal waayeen ninkan iyo sidoo kale Telegram tusaale ahaan taariikhda markii 2018 waddanka Iran ayaa waxa ka qarxay mudaharaadyo aad u weyn sidoo kalena saameyn aad u weyn yeeshay ayadoona dawladdu markii ay Telegram ka dalbatay inay ogaato xogta kacdoon wadayaashan uu isla markaas si toos ah uga diiday dalabkaas Iran oo kaliya ma sidaas la mid ah wadamo kale oo aad badan sidoo kalena ay ku jiraan wadamada Mareykanka iyo kuwa kaleba asagoona isla markaas ninkan aan haba yaraatay waxba ka soo qaadin dalabkaas oo dhan waxyaataba ugu dambeyntii sanadii la soo dhaafay 2024 bishii August waxa la xidhay asaasaha Telegram ee Pavel Durov kadib markii uu ka soo degay airportka waddanka Faransiiska Chief executive of the messaging app Telegram has been arrested. Could be held in police custody. Pavel Durov has been arrested. Just arrested in Paris. He's in police custody. Being arrested. He's been arrested. haddaba ugu dambeyntii 4 maalin oo xidhnaa sidoo kalena la su'aalayay kadib ninkan ayaa ugu dambeyntii la fasaxay asagoona isla markaas lagu qasbay inuusan waddanka ka bixi karin sidoo kalena la heli karo mar walba oo loo baahdo muddada uu kiiskiisu socdo ayadoona sababta ugu weyn ee ninkan loo haystay ay ahaayeen waxyaabahan foosha xun ee ka dhexdhacaya bartiisa lagu magacaabo Telegram asagoona isla markaas lagu soo ogay kiisas ka badan 12 kiis oo kala duwan kuwaasoo isugu jiray kufsiga carruurta iskaamiska iyo sidoo kale kiisas kale oo aad u kala duwan kuwaasoona isla markaas la xiriiray faldambiyada ka dhacaya Telegram waxyaataba sidaas ay tahay ninkan ayaa haddana taageer aad u badan ka helay madax badan iyo sidoo kale dad badan oo magac leh ayagoona sidoo kale ay dadkaas ku doodayaan ninkan inuusan haba yaraatay wax dambiye lahayn ayadoona maanta marka la joogo ninkan xor yahay sidoo kale inuu hawshiisa halkii ka sii wato waxyaataba ugu dambeyntii Telegram ayaa maanta mid ka mid ah aaladaha ugu saameynta badan dunida haddaba aaladan ay dadka qaar u arkaan xorriyad iyo sidoo kale meel freedom of speech halka kuwa kalena ay u arkaan khatar iyo sidoo kale meel aad mugdi u ah laakiin xaqiiqada jirta ayaa in aaladaha sida Telegram iyo sidoo kale dark web ayna tusinayaan in xorriyadu ay had iyo jeer bay imaanaysaa iyadoo ay la socdaan khatar aad u badan midanoona saan dhammaanteen aan ka wada dharagsanaa aan maalin walba indheena ku aragno haddaba adiga maxay kula tahay haddaba ugu dambeyntii saaxiib yaal haddii uu muuqaalkan ku cajabgeliy sidoo kale waan hubaa inuu ku cajabgelin doono muuqaalkan xasaasiga ah sidoo kalena ku saabsan shirkadda weyn ee Samsung iyo sida aysan shirkaddan u ahayn oo kaliya shirkad elektaroonig oo iska caadiya haddaba si aad muuqaalkaas xisaab badan u soo daawato fadlan ku dhufata amalka shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaa noo balana